الرحمن الرحيم. المشتاقون إلى الجنة. وجنات عدن زخرفت ثم أزلفت لقوم على التقوى دواما تبتلوا بها كل ما تهوى النفوس وتشتهي وقرة عين ليس عنها المشتاقون إلى الجنة. ثم تحامل الغلام على نفسه وقال: يا عمي، صدقت الرؤيا والله، صدقت الرؤيا ورب الكعبة، والله إني لأرى المرضية الآن عند رأسي وأشم ريحها. المشتاقون إلى الجنة. ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلها وانكسارها وفجيعتها بولدها، التفت إليها ثم قال: ما قلت؟ قالت: هو ما قد سمعت. قال: ويحك يا أم حارثة، ويحك يا أم حارثة، أهبلت أو جنة واحدة؟ إنها جنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المشتاقون إلى الجنة. أخبار وأسرار، أسرار وأخبار. ساد صوبا وحيني سوق بنيسا المشتاقون إلى الجنة، جنة الريال. وحا مهدي أمان له الله ugu talagalay jannada firdows addoomihiisa rumaysan tawxiidka martiqaadiya maamuus ahaan oo u fududeeya camallada wanaagsan ee gaarsiinaysa iyada addoomihiisaasoo aan yeelan sukadeeda shuqul kale. waxaa mahadiya ammaan leh allah askumaha cirarka iyo dhulka ee ka dhigay malaa'igta rusul baala leh 2 ama 3 ama 4, soo diraha rususha rusul bishaarooyin sidayaalah iyo sidoo kale degniina sidayaal si aysan dadku xujo ugu helin alle rususha kadib. waxaa leh mahad iyo ammaan allah ee uga raali noqda addoomihiisa in yaroo camalah oo u dhaafa in badanoo ceebaalah. wuxuu u iltiray nicmadiisa oo ku waajibiyey naftiisa naxariis. wuxuu ku qoray kitaabkiisa in naxariistiisa ka soo dhaqso badan tahay caradiisa. waxaan qirayaa in macbuud xaq ah jirin allah ma ahee keliya, cidnana wax la wadaagin. waxaan qirayaa oo kale in muxamed yahay addoonkiisii iyo rasuulkiisii. allaahuma salli wasallim wabaarik calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi waman saara calaa nahjihi wakhtafaa aharahu ilaa yowmi addiin. intaas kadib walaalayaal, gacaliyayaal, alla weyne jalla wacalaa uma abuurin khalqigiisa dheel, ugamana tegin bilaash, ee wuxuu u abuuray arrin cadiim ah oo u diyaarshay xil culus. wuxuu u bandhigay ammaanada, yacni waajibaadka diiniga ah, cirarka iyo dhulka iyo buuraha, waase ay ka cudur daarteen inay qaadaan oo ka baqeen iyada, yacni ka baqeen cadaabta alle. aadanaha baana qaaday. xaqiiq wuxuu ku dulmi falaa naftiisa oo jaahil ka yahay natiijadeeda iyo waxa ka dhalan ilaa man wafaqahu allah. waxaana amakaag leh iyo argagax, dhoohnaanta mid ayaamihiisu tirsan yihiin, neefihiisa aanay ku noqon kol haddii ay soo baxaan. waxayna u caddaan doontaa caqli xumada kan ka gaabiya xilalka alla saaray ee ku gaboodfala waajibaadka diinta maalinta shallaytida iyo qoomamada, marka kuwa amarada alla dhowra la horgeeyo allah naxariistaaga hortii iyagoo wafdi ah oo loo kaxayn doono mujrimiinta, yacni mushrikiinta, dembiilayaasha, gaflowyada, naarta, iyagoo jalaqle aroor ah, yacni sida geel asqoobay oo loo kaxeeyey biyo. marka kuwa hore waxay dhex ahaan doonaan beero nagaadi ah janno dhexdeeda, iyagoo ku sugan barwaaqe iyo baraare, ku dangiiga sariiro boqorreed korreeya iyo gogollo cudbigoodu xariir yahay iyo guryasan. kuwa dambena waa ahlu naarka ah, ku sugnaan doonaan togoga jahannama, iyadoo lagu gubi doono wixii ay fali jireen darteed. tanina waxay keentay in nafuusta suubanayaasha doonaan janno u huraan wax waliba ay lahaayeen si ay u gaaraan daartaa leh barwaaqada muguuraanka ah iyo guryahaasan ee beeraha nagaadiga ku yaal. in yar bay hurdo ladeen, waxay booyeen habeenkii intiisa badan,
waxay soomeen maalintii oo la jihaadeen xaqdiidyada alla ayaantooda intee nin suuban oo saalix ah iyo haweenay suuban oo saalixada bay jannada u xiistay siday iyaguba ugu xiiseen jannada waxay ugu xiistay camaladooda udgoon iyo akhbaartooda diiran iyo arrimahooda daahirka ah mid walba oo iyaga ka mid ahi janna doonayaasha waxay la leeyihiin allah asraar iyo akhbaar ayan ogaysiin cid qayrkii laa ilaaha ila allah maxay indho ilmo qubeen ifkan iyagoo ka baqaya inayan ayaan iyo qayb u yeelan eegidda wejiga alle ee kariimka ah intee baana baholyowday oo beerkooda u lushay jaceelay u qabaan la kulanka alle jalla jalaaluh waayo waa isaga subxaanah kan u weyn inta ay wejiyo u sujuudeen oo indho la ooyeen ka cabsashadiisa oo la baholyoobeen beero jaceelay u qabaan la kulankiisa iyo aragtidiisa janna doonayaasha waxay la leeyihiin rabbigood akhbaar iyo asraar waxaana halakan idinku soo gudbin doonnaa wax ka mida akhbaartooda iyo googoos ah asraartooda waxaa ugu horreeya akhbaartan khabar uu ku soo qaatay alimaam ibnu jawsi kitaabkiisa sifatu safwa wuxuuna ku xusay ibnunixaas kitaabkiisa masaaricu alashwaaq iyagoo ka warramay nin ka mid ahaa saalixiinta oo la yidhaahdo abu qudaamata ashaami wuxuu ahaa nin la jeclaysiiye jihaadka iyo u dirirka arrinka alle meeshii laga sheegaba jihaad dar alle u degdega oo hiil siiya muslimiinta isagoo maalin fadhiya masjidka nebiga ee madiina ayaa nin su'aal weyddiiyey oo ku yidhi abuu qudaama bal waxaad nooga warrantaa wixii ugu yaabka badnaa aad aragtay oo ku saabsan arrinka jihaadka abuu qudaama wuxuu yidhi waayahayo waan idinka warramayaa mar baan waxaan la baxay asxaab aan lahaa oo aadnay magaalo la yidhaahdo arraqa oo ku taal ciraaq saaranna webiga furaad si aan uga hor tagno cadow mushrikiinah oo ku qaadno dagaal si aan kaga qaadno dulmigooda muslimiintii halkaa ku noolaa markii aan ku degay raqa waxaan ka iibsaday gaadiid aan saarto hubkayga waxaan ka wacdinnay dadkii masaajiddeeda oo ku boorinnay jihaadka dar alleh iyo wax ku bixinta arrinka alleh iyo u helinta diintiisa wuxuu yidhi markii aan ka hadlay qaar masaajiddeeda ka mid ah aan ugu yeedhay dadka u soo bixidda jihaadka iyo ku diriiradda jidka alleh habeen baa soo galay markaasaan kiraystay qol aan ku hoydo markii habeenkii qaar tegey ayaa waxaa la igu soo garaacay illinkii markaasaan aad u yaabay oo isweyddiiyey cidda garaacaysa albaabka waayo waxaan ahay nimaan laga garanayn carrada aniguna cidna kama garanayn haddaba waayo qofka saacadda habeenkaa mugdiga ah qofka kuu imanaya markii aan furay albaabka anigoo digtoon mise waa haweenay ku gabban gidaarka dabadii cafiifad xijaabanah aadna waxna uga jeedin markii aan arkay waan isku naxay waxaan ku idhi addoontii alla maxaad doonaysaa allaha kuu naxariistee waxay tidhi ma adigabaa abuu qudaama waxaan idhi haa waxay tidhi ma adigaa qofkii u ururinayay maanta lacagta jihaadka waxaan idhi haa wuxuu yidhi markii aan sidaa ku idhi waxay ii dhiibtay warqad iyo 2 guntumood oo dabeeta tagtay iyadoo booyaysa wuxuu yidhi waxaan la yaabay wallaahi arrinkeeda iyadoo aan gacanta ku hayo warqaddii markii ay tagtay baan eegay mise waxaa ku qoran abuu qudaama waxaad noogu yeertay maanta jihaad aniguna waxaan ahay haweenay aan awoodin jihaad mana karo inaan jihaado mana helin maal aan ugu deeqa mujaahidiinta markaasaan waxaan soo gooyey wixii ugu wanaagsanaa aan lahaa oo ah 2 tidcood ee tintayda ka mid ah waxaan sameeyey oo ka sameeyey xarig lagu xidho faraska waxaan kuugu keenay inaad ku xakamayso faraskaaga waa intaasoo ilaahay markuu arko xariggan tintayda aan dartiis ula baxay inuu ii dembi dhaafo oo igeliyo jannada abuu qudaama wuxuu yidhi waxaan la yaabay wallaahi dadaalkeeda iyo u bixinteeda waxaasoo idil ilaahi dartii iyo jacaylka ay u qabto inay hesho dembi dhaaf iyo janno inkastoo ay fashay waxaan ku bannaanayn diinta oo ah inay u goyso tinteeda sidaas laakiin jacaylka ay u qabto inay gasho jannada baa ka xoog badiyey wuxuu yidhi markaasaan tidcaha ku daray alaabtaydii kadib markii aan oogga dillaacay oo aan tukannay salaaddii subax
ayaynu ku baxnay annaga iyo raggayagii raqa oo ku taal ciraaq markii aan gaarnay yogashii maslama bin cabdulmelik mise waa wiil faras fuushan oo gadaashayada ka dhawaaqaya isagoo leh abuu qudaama joogso ilaahay ha kuu naxariiste wuxuu yidhi waxaan ku idhi raggaygii horay u sii socda aniga ayaa u noqonayee oo eegaya arrinkiisa markii aan u laabtay buu horay hadal iiga bilaabay isagoo leh ilaahay baa mahadle iyo ammaan aan iseejin inaan ahaado rafiiqiinna ee ha ii celinnina anoo hungo ah ehelkaygii waxaan ku idhi maxaad doonaysaa ilaahay ha kuu naxariistee wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan idinla aado dagaalka wuxuu yidhi waxaan ku idhi fayd wejigaaga haddii aad qaangaar tahay waxaad nala aadaysaa jihaadka haddii kale maya oo waan ku celin markii uu wejigiisa ka qaaday duubkii mise waa sida dayax mise waa wiil dhallinyaro ah oo 17 jira waxaan ku idhi maandhow waalidkaa ma nool yihiin wuxuu yidhi aabbahay waxaa dilay kirishtanka anigana waxaan u soo baxay inaan la jihaado sidii aabbahay wuxuu yidhi waxaan idhi hooyadaa ma nooshahay wuxuu yidhi haa waxaan idhi u laabo hooyada oo wanaaji iyada una shaqee waayo jannada waa cagaheeda hoosteeda siduu yidhi sala allahu calayhi wasalam abuu qudaama wuxuu yidhi wuu ila yaabay inankii oo yidhi subxaana allah ma waadan garanayn hooyaday waxaan ku idhi may wallaahi ma garanayo wuxuu yidhi ninkii hooyaday waa tan iskale ammaanada waxaan idhi ammaanadee wuxuu yidhi shakaalkii wuxuu yidhi shakaalkee wuxuu inankii yidhi subxaana allah ilow dhowida miyaadan xusuusan haweenaydii xalay kuu timid ee ku siisay kiiska iyo shakaalkii tinteeda ahayd xarig ahaan aad ku xirta faraskaaga waxaan idhi maxay tahay taasi wuxuu inankii yidhi taasi waa hooyaday waxay i amartay inaan u baxa jihaadka waxayna martay dhaar inaan u soo laaban waxayna igu tiri maandhow markii aad la kulanta gaalada ha u jeedin dabada oo naftaada u diyaari alleh oo dalab inaad la daristo isaga oo kula daris noqoto aabbaha iyo walaalaha jannada haddii aad shahiidana iiga shafeeca la weyne jalla wacalaa markaasay igu soo boodday oo i dhunkatay oo kor u taagtay araggeeda xagga samada iyadoo leh ilaahow ilaah kale ma jiro oo xaq ah adiga mooyaane waa adiga macbuudkayga iyo mudanahayga kani waa wiilkaygii waa reexaantii qalbigayga wuxuu ka soo go'ay beerkayga adaan kuu dhiibay ee gaarsii aabbihii iyo walaalihii kadib wuxuu yidhi abuu qudaama markaasaan la yaabay kuraygaa yar misna durba wuxuu igu yidhi ilaah baan kugu dhaarshayay abuu qudaama ha iga reebin jihaadka jidka alleh aniguna in sha allah waxaan ahay shahiid ina shahiid waxaan ahay xaafid kitaabka alleh oo yaqaan ganidda iyo fardafuulka ee ha ku degmin da'deeda yar abuu qudaama wuxuu yidhi markii aan hadalkiisa dhegaystay waxaa ii muuqday inaanan celin markaasuu nala baxay wallaahi maynu arag cid ka firfircoon fardafuulka ka badisa markii aynu degnay isagaa noogu firfircoonaa xaal aan ku sugannahayba intaynu waddada heennay carabkiisa ma dayn xusidda alleh jalla jalaaluh marnaba markaasaan meel degnay aan ka fogeen halkii cadowga goor gabaldhaca waan soomaneen waxaan damacnay inaan samaysanno afur iyo casho wuxuu yidhi abuu qudaama saan markaan degnay wuxuu ku dhaartay korigii inaan cid kale samayn doonin afurka isaga mooye waxaynu isku daynay inaynu ka dayno waase naga diiday markii aan kari weynay waxaan ku nidhi haddaba xoogaa yari naga durug si qaaca xaabada noo dhibin wuxuu yidhi markaasaan fadhiisannay annagoo sugayna wiilka saa wuu naga soo raagay xoogaa waxay igu yidhaahdeen qaar ka mida raggaygii abuu qudaama kac oo soo eg saaxiibka muxuu falay waa naga soo daahaye markii aan tagnay mise korigii wuxuu shiday dabkii oo saaray digsi weyn kadib waxaa ka xoog badiyey daalkii oo gam'ay wuxuuna dul saaray madaxiisa dhagax korkii deeta seexday markii aan arkay isagoo sidaa ah waxaan kahday inaan ka kiciyo hurdada oo nacay inaan u noqdo asxaabtaydii anoon cunto u wadin markaan arkay xaalkiisa sidaasa waxaan is idhi adigaba dhammaystir afurka oo u samee raggaaga markaasaan guda galay inaan sameeyo afurkii waxaana hadba eegayey korayga markaasaan arkay isagoo dhoolla caddaynaya isagoo hurda misna wuxuu bilaabay inuu qoslo
oo misna aad u sii qoslay dabeetana ka soo kacay hurdadii wuxuu Abu Qudaama yidhi markii aan ku arkay xaaladdaas waan la yaabay wallaahi markii uu soo baraarugay oo ii arkay waa uu isku naxay kurigii oo yidhi adeer miyaan idinka daahay waxaan ku idhi may nagama aadan soo daahin wuxuu yidhi iska daa adeer anaa idin samaynahaya waa aniga khaadumkiinna jihaadka waxaan ku idhi wallaahi baadan samaynayn afur iyo cunto jeer aad iiga warranto waxa kaa qosliyey intii aad hurday iyo waxa aad la dhoolbirtay wuxuu yidhi korigii waa riyo aan arkay waxaan idhi ilaahay baan kugu dhaarsaye ii sheeg maxaad ku riyootay wuxuu yidhi korigii maad idaysid aniga iyo allaahoo keliya noo dhaxaysee waxaan ku idhi ilaah baan ku dhaartay sheeg waxa aad ku riyootay wuxuu yidhi korigii waxaan adeerow ku arkay riyadan anoo galay jannada mise bilicdeeda bidhaanteeda barwaaqadeeda iyo baraaraheeda waa siduu kaga warramay alla weyne jalla jalaaluhu kitaabkiisa anigoo ku dhex socda oo la yaaban quruxda iyo qaayaheeda baan waxaan arkay daar ay ka baxayaan iftiinno badan ka samaysan labnad dahaba iyo labnad qalina dariishooyinkeedu yihiin dheeman iyo jawhar irdaheeduna dahab daahyo lagu rogay yaab leh waan galay mise gabdho yaryar oo rafacaya daahyadii wejiyadooda aad moodda sidii dayax wuxuu yidhi inankii markii aan arkay quruxdooda ayaan waxaan bilaabay inaan aad u eego anoo aad ula yaaban quruxdooda iyo qaayahooda wuxuu yidhi misna waxaan milicsaday gabar aan qurux lagu gaarin oo la hadlaysa saaxiibteed joogtay midigteeda oo ay tilmaamaysa iyadoo leh kani waa saygii yacni ninkii raalliya wuxuu yidhi aniguna ma garanayn waxay tahay raalliya waxaan ku idhi ma adigaa raalliya waxay tidhi anigu waxaan ahay shaqaale ka mida shaqaalihii raalliya ma waxaad rabtaa raalliya gal daartan horay u soco ilaahay ha kuu naxariistee wuxuu yidhi markaasaan horay u socday oo galay daartii dusha sare ee daarta waxaa ahaa qol ka samaysan dahab cas waxaa qolkaasi ahaa sariir ka samaysan subarjad cagaaran lugaheeduna waxay ka samaysnaayeen fiddo yacni qalin cas waxaa ku sugnaa sariirtaa korkeeda gabar wejigeeda sidii cadceeda qorrax haddii uusan ilaahay ii sugeen araggayga waan beeli lahaa aragga wallaahi oo wallaahi waxaan beeli lahaa caqligayga waxay qurux ka qabtay iyo qaayo iyo bilicda sariirta iyo wanaagga iyo quruxda halkaa wuxuu yidhi markii ay aragtay xaaladdayda bay waxay igu bilowday hadal oo tidhi soo dhowow gacalkii allow wuxuu yidhi markii aan arkay oo maqlay hadalkeeda ayaan ka agdhowaaday markii aan damcay inaan gacanta saaro ayay waxay igu tidhi gacaliye xabiibi ilaahay ha kaa dheereeya xaaraanta waxbaa kuu haray noloshii adduunka ballanteennu waa berri salaada duhur dabadeed wuxuu yidhi markaasaan dhool biray oo ku farxay Abu Qudaama wuxuu yidhi markii aan maqlay riyada wiilkaa ayaan waxaan ku idhi khayr in shaa allah wuxuu yidhi Abu Qudaama markii aan diyaarinay afurkii baan u tagnay raggeennii oo la barinay markii ooga dilaacay ayaan kacnay oo tukannay salaaddii subax dee tacadugii baa yimid oo markaa abaanduulaheennii inta kacay safay ciidamadii oo nagu dul akhriyay aayadaha hore ee suuradda al-anfaal oo xusay ajarka laga helo jihaadka jidka alleh iyo abaalgudka shahiidka wuxuu nagu booriyey jihaadka iyo dagaalka darka alleh wuxuu yidhi Abu Qudaama waxaan eegay dadkii hareerahayga ahaa mise mid walba waxaa hareero jooga walaalihii iyo qaraabadii kurigiisa ma lahayn aabba u yeedha iyo adeer xaggiisa u soo dhoweeya iyo walaal garab jooga markaasaan eegay oo u fiirsaday xaalkiisa markii aan eegay mise waa safka hore markaasaan intaan safafkii dhex maray u tegey markii aan gaaray waxaan ku idhi maandhow ma leedahay xeel dagaal wuxuu yidhi may kani waa dagaalkii u horreeyey aan ka qayb galo oo lagula dirirayo gaalada waxaan ku idhi arrinka sida aad moodday ma aha waa dhiig iyo dhiilo iyo waran duulaya ee tag safka dambe markaa haddii aan guulaysanno waad nala guulaysatay haddii nala jebiyana ma ahaynaysid qofka u horreeya ee la dilo markaasuu ila yaabay oo yidhi ma adigaa sidaas leh waxaan ku idhi haa anaa sidaa ku leh wuxuu igu yidhi adeer ma waxaad doonaysaa inaan ka mid noqdo ahlunaarka waxaan ku idhi allow kuu magan wallaahi baynu u iman jihaadka wax kale naarka carar mooyee iyo doonis janno wuxuu yidhi allaah jalla wacalaa
kuwa tawxiidka rumaysanow markii aad kula kulantaan kuwa gaalooba goobta dagaalka marnaba ha u jeedinina dhabarka kiinnii u jeediya dhabarkiisa iyaga maalintaasoo kale inay tahay ma ahe xeel dagaal ama inuu ku biirayo ciidan uu ka tirsan yahay wuxuu isagu dhabtii u soo jiiday naftiisa cara ah xagga alle hooygiisuna waa naar oo runtii aaya xun ma waxaad doonaysaa inaan u jeediyo dhabarka iyaga oo hoygayga noqda jahannama abuu qudaama wuxuu yidhi wallaahi waxaan la yaabay caqligiisa iyo cuskashadiisa aayadahan waxaan ku idhi aayadda sida aad u fahantay ma aha waase iga diiday inuu laabto markaasaan soo jiiday gacantiisa si aan ugu celiyo safafka dambe markaasuu igala baxay gacantiisii deeta waxaa bilowday dagaalkii waxaanana kala dhex galay fardihii markuu dagaalkii bilowday foodda ayaa laysdaray oo warmihii la ganay oo seefihii galka laga saaray oo qoor dhaxaa la gooyey oo gacmiya laga faniineen dagaalkii baa nagu cuslaaday ilaa qof waliba naftiisii ku mashquulay wuxuu dagaalkii socday ilaa cadceeddii wareegtay oo ka gudubtay bartankii cirka waxaana soo galay wakhtigii salaadda duhur dabeeto wuxuu ilaahay jebiyey gaaladii oo waxaa ku dhacay jac iyo baaruud wuxuu yidhi abuu qudaama markuu ilaahay jebiyey cadowgii oo laga adkaaday colkii waxaan kulannay raggayagii oo tukannay duhurkii oo qof waliba bilaabay inuu raadiyo ehelkiisii iyo asxaabtiisii kurigii qofna isma weyddiineen oo warkiisa doonayn iyadoo arrinku sidaa yahay waxaan idhi wallaahi waa inaan soo eego waa intaasoo la dilay ama dhaawac yahay ama la qafaashay oo horay ay ula sii tageen gaaladii markii la jebiye kadib waxaan dhex qaaday meydkii iyo dhaawacii markaasaan waxaan maqlay cod leh wardadow isoo aadiya abuu qudaama waxaan milicsaday halka codka ka yeedrayo mise waa wiilkii oo warmihii u soo kala tartameen fardihii cagta mariyeen carrabkiisii dhiigayo xubnihiisa dhaawacyo xun gaareen isagoo dhulka yaal markaasaan aaday oo dhabta saaray oo aan ku idhi waa ikan adeer waa ikan waa aniga abuu qudaama wuxuu yidhi gabankii allah baa mahadle iyo ammaan ee igu simay nolosha si aan kula dardaarmo adeer ee iga dhegaysa dardaarankan wuxuu yidhi abuu qudaama markaasay ilmo iga qubatay quruxda iyo qaayihiisa iyo khayrka ka muuqda dartii oo aan ilmo u qabay hooyadii deggan arraqa oo sannadkii hore loo sheegay dhimashadii aabbihii iyo walaaladii sannadkanna dhimashadiisa loo sheegi doono wuxuu yidhi markaasaan bilaabay inaan dacal maradeeda kaga tiro dhiiggii wejigiisa ku yiil markuu dareemay buu isoo eegoo yidhi ma waxaad ku tiraysaa dhiigga maradaada ku tir dhiigga maradeeda ee ha ku tirin maradaada adeerow wuxuu yidhi abuu qudaama markaasaan wallaahi booyey umana celin jawaab dabeeto wuxuu ku yidhi cod gaaban adeer ilaah baan kugu dhaarshaya haddii aan dhinto u laaba magaalada raqa oo ugu bishaaree hooyaday in ilaahay aqbalay hadiyadeedii iyo in wiilkeedii lagu dilay jidka alle isagoo horay ugu socday cadowga aan dhabar jeedis ahayn iyo in ilaahay iga mad yeelay shuhaadada waxaan ka gaarsiin doonaa salaanteeda aabbahay iyo walaalahay jannada wuxuu yidhi adeer waxaan ka baqayaa inay hooyaday kaa rumaysan weyda hadalkaaga ee sii qaada dharkayga qaarkii ee dhiigga leh waayo markii ay aragto hooyaday waa kaa rumaysanaysaa in la idilay waxaadna ku tidhaahdaa wuxuu ku yidhi ballanteennu waa jannada haddii alla idmo adeer markii aad tagto gurigayaga waxaad arki doontaa gabar yaroo walaashay oo 9 jir ah oo markaan guriga soo galo farxi jiray markii aan baxayana booyi jirtay oo ka murugoon jirtay sanadkii hore waxay ka naxday dhimashadii aabbe sanadkanna waxay ka nixi doontaa dhimashadayda waxayna igu tiri markii ay igu aragtay dharka safarka oo aragtay hooyaday oo maryihii ii xiraysa waxay igu tiri walaal ha naga soo daahin soo noqo adoo nabada soo dhaqsana markii aad aragto niyadda u dhis oo ku dhow walaalkaa wuxuu ku leeyahay ammaano allah allahan kuu wakiishay oo kuu dhiibtay wuxuu yidhi abuu qudaama dabeeto wuxuu dareemay culays waxaa haw ka soo yidhi dhidid oo neef tuuray dabeeto wuxuu yidhi adeer riyadaydii waa rumowday waa igu rabbiga kacbadee wallaahi waxaan arkaa raalliyadii hadday waxay fadhidaa madaxayga oo helayaa carafteeda dabeeto wuu hinraagi oo reemay dabeeto naftii ka baxday anoo dhabta ku haya wuxuu yidhi abuu qudaama waxaan soo qaatay qaar ka mid ah dharkii dhiigga lahaa oo aan geliye kiis dabeeto waan aasnay hammigaygu igu weynaaw aan lahaa wuxuu ahaa inaan u laabta raqa oo aan gaarsiiyo farriintiisii
wuxuu yidhi dabeeta waxaan u laabtay raqa anoon garanayn magaca hooyadii iyo hoygooda anigoo ku socda jidadkii raqa ayaan waxaan ku hakaday guri ay iridkiisa taagneed gabar yaroo 9 jir ah oo eegaysa wixii imanaya iyo wixii socda qof kasta ay ku aragto raad safar waxay ku lahayd adeer xaggee ka timi waxay ku lahaayeen jihaadka waxay lahayd walaalkay ma idin la socdaa wuxuu mid waliba ku lahaa ma garanayo walaalka markii ay ilaa dhowr qof weydiisay dhammaantoodna ayaan wax jawaaba siin ayay oyday oo madaxa hoos u rogatay oo tiri dadkii waa kuwan soo wada laabtee maxaa helay walaalkay markii aan arkay xaalkeeda sidaasa ayaan abbaaray